kulan wanaagsan dhegaystayaal saacadda Afrikada bari haatan waa 2 duhurnimo qodobadan maanta idin haynana waxa kamid ah xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay qayb ka tirsan gobolka Hawaii Mareykanka kadib foolkaana halkaasi ka qaraxday dad badan ayaana guryahooda laga saaray ciidamada Kenya howlgalla ka wada goob lagu laayay rag dhagaxaan qodida ka shaqeeya oo ku taala magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi bari Kenya waxa kale oo aan barnaamijka idinkugu haynaa shirkadani waa shirkada ugu weyn goboladani Midwest-ga la isku dhaw Mareykanka waxay qaadaan baabuurta yaryar dadka shacabka wataan wadada ku wataan markii dadka shaqaalaha iyo dadka ardayda ay kala guurayaan xilliga kala guurka baa la qaadaa waa ganacsato Soomaali ah oo ku nool Mareykanka kuwaas oo la yimid ganacsi dhanka gaadiidka oo Soomaalida ku cusub daraasad cusub oo la soo saarayna waxa ay leedahay cunooyinka fudud waxa la xiriiriyay dhalmada soo daahday haweenka ciyaarihiina barnaamijka kama maqnaa barnaamijka waxa idin soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali anigoo Faadmo Macalin Abuukar ayaa idin la socodsiinaya marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida Axmed Mursal Xuseen ayaana soo jeedinaya Axmed mahadsanid Faaduma abaalmarinta Nobel Prize-ka ee suugaanta ayaan la bixinayn sanadkan kadib markii akadeemiyadda fadhigeedu yahay Sweden lagu helay kulug lahaanshaha fadeexad la xiriirta dhanka xadgudub dhanka galmada ah lix xubnood oo ka tirsan hay'addan ayaa iscasilay hay-addan oo go'aamisay cidda ku guulaysata abaalmarintan ayaa waxaa soo wajahay sumcad xumo barasaabka gobolka Mareykanka ku yaal ee Hawaii ayaa soo saaray amar degdeg ah oo la xiriira in awoodda la isugu geeyo sidii wax looga qaban lahaa khatarta la xiriirta foolkaanada buurta Kilauea wuxuu sidoo kale howlgeliyey ilaalada qaranka si ay gacan u siiyaan kooxaha u xilsaaran gurmadka degdega ah 1700 oo qof oo ah dadka deegaanka ayaa laga daadgureeyay jasiiradda Hawaii kooxaha dusha sare kala socda doorashada dalka Malaysia ayaa ku eedeeyay dawladda wax isdabamarin la xiriirta doorashooyinka dalkaas waxaa jira liis gaaraya ilaa 10 sarkaal oo la sheegay in ay lacag qaybiyeen intii uu socday ololaha doorashada dhici doona toddobaadka soo socda waxaa ka mid ah saraakiishan la eedeeyay ra'iisul wasaaraha dalkaas Najib Razak kaas oo toddobaadkii hore u ballan qaaday in ka badan $100 in uu siin doono qof kasta oo ka mid ah 60,000 oo qof oo ah shaqaalaha shirkad ay dawladdu leedahay ugu dambeyntiina xisbiga CHP ee ugu weyn xisbiyada mucaaradka dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqay musharaxooda la tartami doona madaxweyne Erdogan doorashada dhici doonta bisha dambe musharaxan ayaa ah xildhibaan rugcada ah laguna magacaabo Maharim Insi kaas oo caan ku ah hadallada kulkulul ee ka dhanka ah madaxweyne Erdogan xisbiyada mucaaradka ah ayaa ku rajaweyn in ay ku khasbaan Mr Erdogan in uu galo wareeg kale oo doorasho ayagoo ku midaysan hal musharax oo kaliya warkii caalamkuna waa naga intaas Faaduma mahadsanid Axmed وهاجاك dhegeystayaal haddii aan ku bilowno xaalad degdeg ah ayaa lagu soo rogay gobolka Hawaii dalka Mareykanka kadib markii qarax foolkaano uu halkaasi ka dhacay kaasoo sababay in kumanaan qof guryahooda laga saaro qaraxan foolkaanada ayaa ka dhacay jasiirad ku taala gobolkaasi kadib dhulgariiro isdaba joog ah oo halkaasi ka dhacay James Cook guriyaha BBC-da uga soo warramay waqooyiga Ameerika ayaa warbixintan Los Angeles ka soo diray Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq ayaana soo jeedinaya volkaanaha aqiiqa iyo dambaskii ee ka soo fufayay waxaa laga arkayay meelo dhowr kiiloomitir u jirta goobta ay wax ka dhaceen sawirro drone lagu qaadayna waxaa laga arkayay volkaanaha oo furka tuuraya oo sii daynaya dam iyo holac iyo qiiq fara badan qof ka mid a dadkii meesha deganaa ayaa wuxuu u sheegay wargeeska Honolulu Star in dabkii iyo holicii ay kor u baxeen oo cirka isku shareereen ilaa 45 mitir oo u guuxaya buu yiri sidii motorka diyaaradda oo kale dadaal xoog la ayaa socda oo lagu gurmanayo aagaasi dhibaatadu ay ka dhacday gudoomiyaha gobolka Hawaii David Egan waxa uu sheegay in ay hawlgelinayaan
askarta keydka militariga ah oo iska xaadirinaya goobta mashaqadu ay ka dhacday. waxaan howlgelinay ciidamada ilaalada qaranka. waxaan haysanaa shaqaalaha ilaalada oo hadda jooga xarunta maamulka waaxda degdega ee Hawaii. waxaan heli doonaa ciidamo ilaalo dheeraad ah oo howlgeli doono si ay u qayb qaataan howlaha daadguraynta sidoo kalena xaqiijinayo ammaanka bulshada. xafiiska cilmiga dhulka u qaabilsan Mareykankuna waxa uu sheegay in dhulka meelo cusub ee haatan qarar uu soo galay oo taasina ay tahay halis ah in dab iyo dambasi uu ka soo burqan karo. volkaanahan hadba heer ayuu furka tuurayay oo dhumucdiisa iyo xajmigiisu waa uu kala awood badnaa 30 sano ee la soo dhaafay, waxaana uu aasay dhul ku fadhiya 48 mayl oo dhinac walba ah isla muddadaasi sida laga soo xigtay xafiiskan cilmiga geolojiyada ee dalka Mareykanka. cabdinuur sheekh maxamed isxaaq oo warbixintaasi noo soo jeedinaya aad ayuu u mahadsan yahay. haatanna 4 qof oo dhagaxan qodida ka shaqeeya ayaa lagu soo waramayaa in xalay lagu dilay magaalada Madheer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya kadib markii rag looga shakisan yahay Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen goobtii ay ka shaqeynayeen oo ku taala xadka Kenya iyo Soomaaliya. ciidamada Kenya ayaana lagu soo waramayaa in halkaasi howlgallo ay ka wadaan. sanadkii 2014 ayay ahayd markii 36 qof oo ka shaqeeya dhagaxaanta ay Al-Shabaab ku dileen Madheer, taasoo keentay in dowladdu ay mamnuucdo in goobtaasi dhagaxaanta laga qodo. haddaba wixii warkaasi ku soo kordhay ayaan goor dhoweyd ka wareystay Ibraahim Aadan Cali oo loo yaqaano Ibraahim Habi oo ka tirsan idaacadda maxalliga ah ee Midnimo FM ee magaalada Madheer. faadumo waxa uu weerar ka dhacay tuulada Shimbir Faadumo ee hoos timaada isla degmada Ceelwaaqa, waxaana weerarka ku dhintay bay yiraahdeen booliska 4 qof halka 2 kalena ay goobta ku dhaawacmeen. dadkaasi goobta lagu dilay iyo 2 qof oo goobta lagu dhaawacay kulligooda hadeertan degmada Ceelwaaqa ayay ku sugan yihiin. booliskana waxay sheegeen in goor dhow loo duulin doono caasimada dalka ee Nairobi. booliska wararka soo kordhaya waxay sheegayaan in booliska ay yiraahdeen dadkaasi waxay ku sheegeen inay ahaayeen dad dhagaxaanta ka soo gura buuraha tuuladaasi ee Shimbir Faadumo ee degmada Ceelwaaqa hoos timaada, waxayna goobta ka shaqeynayeen bay yiraahdeen xilligaasi oo meesha lagu weeraray. ma jiraan howlgallo ciidamada ammaanka ay halkaasi ka wadaan kadib dhacdadaas? booliska waxay sheegeen in ciidamada laamaha amniga ee kuwa booliska iyo militariga iskugu jira loo diray tuuladaasi oo uu weerarka ka dhacay. halkaasi ayaa ay baaritaan ka sameynayeen bay yiraahdeen dadka weerarka geystay. booliska markii la weydiiyey dadka ay uga shakisan yihiin mise dadka weerarka soo qaaday waxay ku tilmaameen inay ahaayeen Al-Shabaab oo ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya. waxay yiraahdeen degmadaasi ayaa dhawaanahanba lagu sheegayay booliska fijignaan bay ku jireen weerarka intuu dhicin ka hore. dowladda Kenya hore ayay u mamnuucday in gelinka dambe laga shaqeeyo goobaha dhagaxaanta laga qodo ee ku yaala deegaanada looga shakisan yahay in Al-Shabaab ay ka agdhow yihiin. weerarkan xalay ayuu dhacay, marka booliska arrinta ma ka hadleen? booliska degmada Ceelwaaqa waxay sheegeen in dadkaasi goobta lagu laayay iyo kuwo kale oo iyaguna goobta dhagaxaanta ka soo guro in haddii la gaaro 6 saac duhurnimo haddii la gaaro in qof meesha tegi karo uusan jirin. dadka dhagaxaantaasi meesha laga soo guraya ka ganacsadana waxaa booliska horaan ay fariin ugu direen inay dadkaasi aysan adeegsanin dhagaxaanta kusoo guranin marba haddii galanka dambe la gaaro. marka booliska waxay sheegeen dadkaasi markii goobta loogu imaanayay horaan baa digniin loogu diray oo loo sheegay inaysan halkaasi galanka dambe meesha lagu gaaro dhagaxaanta ay kasoo guri karin loona ogoleen. marka booliska waxay sheegeen in dadkaasi ay ka tallaabsadeen digniintii iyo wacyigelintii booliska. waxay yiraahdeen ay ka dhaga adeegeen digniintii aan u dirnay iyo wacyigelintii aan siinay. marka meeshii ay galanka dambe tageen halkaasi ayaa lagu soo weeraray. sidaasi ayaa 4 qof lagu dilay, 2 qof kalena goobta lagu dhaawacay. Ibraahim Habi oo qadka telefoonka ugu waramay ayuu kaasi ahaa. dhegeystayaal warbixino kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa inoo soo socda. halkaad nagala socotaana waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
waa hagaag dhegeystayaal dowladda mareykanka ayaa si rasmi ah cabasho ugu gudbisay dowladda shiinaha kadib markii marar kala duwan shucaac lagu ganay duuliyayaasha mareykanka shucaacaas ayay sheegtay in lagaga soo ganay saldhigga ciidamada shiinuhu ay ku leeyihiin jabuuti warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinaya mucaawiye maxamed buraale wasaaradda gaashaandhigga ee dalka maraykanka ayaa shiinaha ka codsatay inay baaritaano ku sameeyaan arrintaasi oo dhibaato ku haysa duuliyaasha maraykanka wasaaraddu waxay sheegtay in dad ku sugan jabuuti ay shucaacay militariga wax ku shishaan ay ku qabteen duuliyaasha maraykanka ee soocaga dhiganayo dhacdadan ayaa laba duuliyo oo waday diyaarad xamuul ah uu dhaawac sahlan ka soo gaaray indhaha kadib markii shucaacaasi lagu soo shiishay sida ay mas-uuliyiintu sheegeen maraykanka ayaa xarun militari ku leh dalka jabuuti wuxuuna u adeegsadaa howlaha argixisa ee la dagaalanka afrika iyo bariga dhexe sanadkii horena shiinaha ayaa jabuuti ka furtay xaruntii militari ee markii ugu horreysay uu ku yeesho meel ka baxsan dalkiisa waxayna dhowr kilomitir u jirtaa saldhigga maraykanka dana white oo ah afayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay inay ku wargeliyeen kana codsadeen shiinaha inay baaritaano ku sameeyaan dhacdaasi dana white ayaa sidoo kale sheegtay in wasaaradda gaashaandhiggu ay ku kalsoon tahay in shucaaca lagu soo shiishay uu ka yimid muwaadin shiinaha u dhashay balse aysan caddayn ujeeddada laga lahaa toddobaadyadii u dambeeyey in ka yar 10 jeer ayuu shiishkaasi dhacay ayay tiri ilaa hadda shiinuhu kamuusan hadlin eedeymaha loo soo jeediyey waa tahay mucaawiye aad ayuu u mahadsan yahay haatana dhalinyaro Soomaali ah ayaa ka sameeyay gobolka Minnesota ee dalkaasi mareykanka shirkad ganacsigeedu oo Soomaalida ku cusub yahay shirkadan oo magaceeda la yiraahdo Interstate Road Runner waxay ka shaqeynaysaa in baabuurta yaryar ee ay dadku leeyihiin ay u kala gudbiso gobolada kala duwan ee dalkaasi Maxamed Bashiir Cumar Gaab waa madaxweyne ku xigeenka shirkadan waxa uu sidoo kale yahay madaxa dhaqaalaha wuxuuna u waramay wariyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen shirkadani waa shirkada ugu weyn goboladani Midwest-ga la isku dhaw Mareykanka waxay qaadaan baabuurta yaryar dadka shacabka wataan wadada ku wataan sida Toyota Camry-da iyo baabuurta yaryar markii dadka shaqaalaha iyo dadka ardayda ay kala guurayaan xilliga kala guurka baa la qaadaa oo gobol kale u guuraya baabuurtooda loo qaadaa in dadka gawaadhidooda aad qaadaan oo baabuurta waaweyn aad ku qaadaan fikradaasi maxaa idinku dhaliyay markii horeba fikradda kambanigani waxaa aas-aasay dhalinyaro Soomaaliya isu timid dhalinyarada isu timid baa markii hore waxay u shaqeyn jireen kambani sidan oo kale qaada baabuurta markaasi waxay go'aansadeen maadaama darawalnimo ay ku shaqeyn jireen inay abuuraan kambani ayaga ay leeyihiin marka khibradii fikradiiba meeshaas ka soo qaateen way heshiiyeen way isu tanaasuleen kambanigan ay aas-aasteen iyo macaamiishiina idiinahoo aad gawaarida u qaadaan inta badan gawaarida dadka waxaa loo qaadaa 3 group ama 3 qayb dad kamida dadka guuraya ha ahaado shaqaalaha la bedelay ama ardayda iyo dad ka cararaya xilliga snowga winterka Minnesota iyo goboladani waa laga guuraa gobolada koonfurta Mareykanka loo guuraa kulul marka qolyahaas marna la sii qaadaa marna la soo qaadaa iyo kambaniyada ka bixi mushtara gadida baabuurta ama dealerada Soomaalida u taqaano baabuurtan waaweyn ee ku qaadaan waa baabuur waaweyn imise gaari baa lagu qaadi karaa markiiba qofkii garan kara baabuurka taraaga waa baabuur weyn markiiba waxaa lagu qaadi karaa 9 ilaa 10 baabuur oo baabuurta yaryara saa daraadeed marka waxa la isugu keenaa baabuurta waxa laga soo aruuriyaa magaalada oo dhan qof walba gurigiisii ama shirkadaha dealershibyada meesha baabuurta ku gadaan baa laga soo qaadaa xerada la keenaa xeradana laga qaadaa ay ku taala Minnesota gobolada Mareykanka dhan loo kala gudbiyaa xero kale ayaa ku leenahay gobolka California magaalada Los Angeles area wahagaag wakaasina waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cumar Gaab oo uu waramayay wariyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen Shiine wahagaag dhageystayaal haatana sheeko intaasoo idilka duwan ee daraasad cusub oo lagu sameeyay haween gaaraya 5598 ayaa waxaa lagu ogaaday in dumarka cunooyinka fudud ay ku qaadanayso isbuuciyo iyo bilooyin inay markaasi uur qaadaan marka la barbar dhigo haweenka aanan iyagu markaasi cunin cunooyinkaasi waxaa ka mid ah sida hambeegarka iyo weliba jibsiga sheekooyinkaasi oo dhammaystiran dhegeystayaal ee website-keena ayaad kala socon kartaan haatana shacbiga oo xurmeeya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waayaha nolosha iyo toddobaadkan waxaan ahay cabdilaahi jaamac qodobka aannu barnaamijka ku eegaynaana waxa weeye yay tahay mas-uuliyaddooda in ay dadka ka ilaaliyaan waxyaabaha tayadoodu aanay fiicnayn ee dalka la keeno sida raashin dhacay ama dawooyin dhacay toddobaadadii la soo dhaafay dhegaystayaal waxaa suuqyada ganacsiga ee jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee somalilan ka taagnayd jahawareer ka dhashay markii la sheegay in dalka la keenay shidaal aanay tayadiisu fiicnayn gaadiidlaydii isticmaashay shidaalkaasi ayaa waxay tilmaameen in ay la kulmeen cillado aanay ku ogayn baabuurtooda dhinaca kalena soomaaliya waxaa la sheegaa in raashinada iyo dawooyinka la geeya ay yihiin kuwo aan la hubin tayadooda oo laga yaabo in tayadoodu ay hoos u dhacsan tahay martida barnaamijka nagala qaybgeli doonta waxay kala joogaan magaalooyinka hargeysa iyo weliba muqdisho martida hargeysa joogta waxaa ka mid ah mahdi sheekh cabdi oo isagu ah muwaadin dareensan in waxyaabaha somalilan la keeno aan tayadooda la hubsan iyo agaasimaha hay-adda dhowrista tayada ee somalilan maxamed geedda caynaashe oo isaguna ka hadli doona waxyaabaha hay-addooda dhowrista tayadu ay qabato iyo gaar ahaan shidaalkii ugu dambeeyey ee dalka la keenay sidii uu dalka ku soo galay aan ku horreeyo mahdi sheekh cabdi oo isagu ka hadlaya jahawareerkii ka dhashay shidaalkaasi waxaana hadalkiisa uu ku bilaabay runtii waad og tihiinoo keligay maaha ee dhammaan dalka waxaa ka dhacay jahawareer uu sababay shidaalka haamiheenna lagu shubay oo runtii noqday wax cadilaad ku keenay dhammaan isku socodkii iyo nolol maalmeedkii dadka masaakiinta ah mahdi waad sii wadan doontahay shidaalkan laga cabanayey markaad dadka u yar sharaxdo ma naaftada ama batroolka maxau ahaa shidaalka laga cabanayay batroolka ayay mushkiladdu ku koobnayd gawaadhida kale ee naaftadu iyagu waxay ahaayeen kuwo si caadiya u shaqeeya agaasima inagoo si guud tayadii uga hadli doonna oon xataa ku noqon doona mahdina shidaalkan laga cabanayey hay-adda tayadu maxay ka ogeyd shidaalkan hadda taagan oo xaalad xaqiiqatan aan la difiri karina waxa weeye 30 habeen meelaha waddanka gudihiisa ku jira oo yaala shidaalkani wasakh ma laha xumaan kale ma laha laakiinse waxa ku jira chemicals oo hawada la falgelaya marka ay hawada la falgalaanna sameynaya evaporation hawada la falgalaya micnaheedu waa waxa weeyaan biyo sameynaya kadib shidaal wuxuu noqonayaa aan gaarigii ku shaqayn karin marka wuxuu isku bedelayaa in uu shidaalkaasi gaarigii dhibaatooyin u gaarsiiyo oo jagtaradii awalba looma keeni jirin horta xaqiiqatan hay'addu shaqadani markii hore waa laga madax bannaayey oo shaqadan xukuumaddii hore laboratory bareefad ah ayaa muwaadin reer somalilan ah u lahaa ayaa lagu shaqaynayay waana markii ugu horreysay ee qalad noocan ay u dhaco bilaadanka qalad waa ka dhici karaa laakiinse xalkunba hadiyo jeer muhiima marka shaybaadhkii shidaalka lagu baadhayaba qof baa lahaa miya shirkadda shidaalka baadha laboratoriga ma aha shirkad ay dawladdu leedahay qof shakhsiya oo muwaadin ah oo xaqiiqatan ka damqaday inuu waxaasi baadho ayaa waddanka keensaday oo mataqaanaa mulkiyaddeeda leh shidaalkan xun haddaan usoo noqono markabka sidee wuxuu taagnaa muddo 20 cisho ah ayuu dekada berber taagnaa dadkan ganacsatadaana dhibtooda waad garanaysa waxay ka odhanayaan maalinta uu dekada taagan yahay mar lacag baa nagu socda inta uu taagnaa dekada barxaddeeda aanu dekada ku soo xidhinin ayaa la tegay oo laga soo baadhay waxaa la arkay in shidaalkii uu yahay shidaal caadi ah soo xidhaadina mar labaad la baadhay marka labaad ee la baadhay waxaa la xaqiiqsaday shidaalkani inuu yacnihii shidaal 24 saacadood gudaheed in la baadho uu yahay ah oo yacnihii aan la qaadan karin ilaa dib loo baadho oo waxyaalo fara badan laga baadho aduu si qalad ah ayay u dhacday oo haamaha shidaalka uu ku dhacay shidaalkani agaasima raaleho meel garanaya markaa shirkadii keentay waa la garanaya si fiican baa loo garanaya guddi baa loo saaray isku dhafan oo wasaaradda ganacsiga iyo hay-adda dhowrista tayada ka socda guddidaasi aniga iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ayaa ka mid ahayn oo hogaaminaynay annagaa berbere tegnay annagaa xaqiiqdii taallay ee shidaalkaasi oo ahaa iyo dhibtii uu geystay soo taabannay annagaa soo waraysanay ganacsatadii dhibta gaadhsiiyey muwaadiniintii isticmaalayay ee gaadiidka lahaa kaliya maaha shidaalka laakiin ma jiraan raashin dhacay ood ogtihiin ma jiraan dawooyin dhacay ood ogtihiin oo waddanka la keeno horta dawooyinka iyo raashinka waxaa jira hab aan anagu u xaqiijino waxa kan inuu waxdee sugan yahay oo dadku isticmaali karaan waa ogtihiinoo laboratoriyo lagu baadho ama qalabkii lagu baadhayay raashinka iyo qalabkii lagu baadhayay dawadu ma yaalaan waxaase xusid mudan in hadda
ay xukuumadda jirtaa ay ka go'an tahay inay hawshaasi qabato oo la dirdirgeliyo waxaase annagu hadda ku baadhnaa waan ku ogaanaa in waxa kan yahay wax bulshadan ay isticmaali karto iyo inaanu isticmaali karin hab aragtiyeed oo waxaan tix raacnaa shirkadda laga keenay marka hore dawada waxaana loo keenaa shirkaddu intaanay dawada qaadanba ama madaarka ama dekada meesha doontaba ka soo dejisatay meesha intaanay ka qaadanba waxa anagana loo keenaa warqado cadaynaya in alaabtan ay ka yimaadeen shirkad tusaale ahaan Ingiriis ah oo la yaqaan shirkaddii baan dib ula xiriirnaa waxaan weydiinaa in alaabtaas iyada ka soo baxay email-aan isdhaafsanaa markaanu cadayno in loo cadeeyo in waxa kan uu yahay wax sugan uma anaguna fasaxnaa oo inay keeni karaan mana keeni karaan ilaa iyo anagu baadhna mooyaan dawooyin raashinka anusan mahdi shidaalka marka la iska dhiga halkaa waxyaabaha kale ee aad leedahay dadka iyo dalka dhibaato ku yihiin oo aynu ka hadalay raashinkaas iyo dawooyinkaas bulshadu say wax uga ogyihiin artaa waxa jirta horta waxa weeye halis caafimaad oo ay dadku aad hadda uga cabsi qabaan dadku waxay isweydiinayaan mar haddii waxa weeye shidaalkii gawaadhidii iyo wixii la xidhiidhay sidan xaaladiisu ay noqotay wixii ay calooshooda u cunayeen oo waxa weeye runtii arrin le khataraheeda sidee bay ugu aaminayaan waxa weeye nafahooda waxyaabaha hadda laga cabsi qabo dawooyinkaas kamida waxay dadku aaminsan yihiin in ay jiraan sharikado waxa weeye wixii dib karaatoon ugu soo samaysanaya hadday doonaan meelo hoose dheydka ku dhajinaya aad bay u mahadsan yihiin martidaasi magaalada Hargeysa la joogtay waxa goordhow inoo soo socda qayb kale oo la xidhiidha isla arrintan oo magaalada Muqdisho ka imanaysa balse marka hore aan eego dhinaca Facebooka iyo Muna Maxamuud mid kamid ah dhageystayaasha barnaamijka halkaas kala socda ee qodobkan ka hadlaya hayno soo qabato cabdinuur axmed oo jooga burtinle waxa uu yidhi run ahaantii waa dhibaato aad u weyn raashinka dhace ee laga isticmaalo waddanka waxaana loo baahan yahay in maamulada iyo dowladaha jira ay iska kaashadaan sidii waddanka looga ilaalin lahaa aad bay u mahadsan tahay Muna Maxamuud iyo dhageystayaasha guud ahaan barta Facebook aan ku leenahay BBC Media Action Somali barnaamijkan ka dhageysanaya wararkii ugu dambeeyay waxaad ka dhageysan kartaa laanta afka Soomaaliga ee BBC ama waxaad ka akhrisan kartaa bbcsomali.com dadweynaha degan Soomaaliya ayaa inta badan waxay dareensan yihiin in waxyaabaha ka dekedaha iyo madaarada iyo meelaha kale ee ganacsi ee dalka laga soo geliyo cuntooyinka iyo dawooyinka aanay jirin cid kantaroosha qaybtan soo socota magaalada Muqdisho waxaa ka soo dirtay Aamin Ladan Axmed waxaanay martida ay la kulantay kamida xuseen aadan xasan oo ka mid ah macallimiinta jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo Ikraan Daahir Cabdiraxmaan oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada waxa ay ka hadlayaan sida u dareensan yihiin in cuntooyinka iyo dawooyinka la keeno Soomaaliya aanay ahayn kuwa mara hay'ad kontaroosha oo dadka ka eegta inay ku habboon yihiin in la isticmaalayo in kale warayn aamini waxay weydiisay xuseen aadan xasan bal inuu ka warramo sida uu arko tayada cuntooyinka iyo dawooyinka Soomaaliya la keeno waxaanu ku jawaabay intaan ka warqabo tayada waxyaabaha la keena Soomaaliya wax tayale waa ay ku yar yihiin oo lama fiiriyo kontaroolkooda haddii la keenana waxay marayaan ma ay jirto aslan waxaa la rabay dadiyowga inay damiirkoodu ka reebo waxa aan fiicnayn inay dadkooda u keenin marka waxa la keena halkani wax tayale ma aha guud ahaan intaan u arkay waxaad sheegtay in waxyaabaha dalka la soo geliyo aanay tayo lahayn maxay ahayd markii in la sameeyo waxyaabahan intaan la soo gelin ka hor waxa loo baahan yahay wax walba ee dalka la keenayo oo imaanayo haday cunno tahay haday daawo tahay iyo haday agab tahay iyo haday gawaari tahay intaba in la kontaroolo inay yihiin wixii ku habboonaa ee ku wanaagsanaa tayada isticmaalkooda ee badqabka ayaga qudhooda iyo badqabka dadka cunahaya ama isticmaalahaya inay caafimaadkooda ayna waxba u dhibaataynaynin waxyaabaha la yaab kale oo aniga xuseen ahaan aan la kulmay waxa kamid ah iminka ma habboona inaan sheego dadyow shirkada leh kambaniye leh siiba kambaniyada daawooyinka leh ee Muqdisho ugu waaweyn qola ayaa waxay keentay daawooyin xoogaha control la soo mariyay ayay waxay ka keenay Yurub farmasiyooyin gooni ayay ku gadaan dadyowgii daawada keenaya suuqa shirkada daawada laha ayaan ku arkay meesha ay ka gadanayo marka nin baa la kaftamay oo yaqaanay anu ma noqonin ayuu xoolo orahay dhawaas adiga wallahi niyow daawooyinkan kuwan baa ka tayo fiican macadalika isagii baa dadku u keenayo isagii tii u keenayna ma isticmaalayo tukalu gooni u qaadanaya waayahay waxaan siinayaa Ikraam shacabka Soomaaliyeed maxay kala socdaan waxyaabaha dalka la soo gelinayo ma soo ogyihiin tayadooda aaminahay horta dadka Soomaaliyeed tayada waxyaabaha la keenayo lama socon karaan laakiin tayadooda inay liidateed garan karaan markay isticmaalaan marka dadkuna
waxay u qaybsamayaan labo kuwo inoo soo daabulo oo inoo soo iibiya iyagu iyo kuwo inta la keenay aan naga kontaroolin oo dowladeenni ah qaybta saddexaad waxay noqonaysaa qayb shacaba oo aan waxbana ka qaban karin kuna dhibaataysan oo dhibtaa dareemaya laakiin aan karin inay waxba ka qabtaan marka shacabka maxay ogaan waayeen ka hor intaanay isticmaalin tayada waxyaabaha la keenayo wadanka kullaytaba shay daboolan oo aad soo iibisay inuu tayo leeyahay halbeeg aad ku garanaysid ma jiro laakiin markaad isticmaasho waxaa garan kartaa inuu tayo leeyahay inuusa tayo lahayn falcelinta markaa isticmaasho ka soo noqota ayaad ka garan kartaa marka sida hadda daawooyinka kale qofku isticmaalayaa kaniin unbuu sii laqayaa waxna kama taro dhakhtar cusub ayuu usii socdaa bacd daawahu soo qaadaa wuu laystaa waxna kama taro kram waa kugu soo laabanaya ustaad xuseen ayaan siinayaa iyay mas-uuliyadii ka saaran tahay kontaroolidda waxyaabaha la soo gelinayo wadanka mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay inuu dameerkiisa ka reebo dadnimadiisa ay ka reebto muslimnimadiisa ay ka reebto mudani waxa weeye qofka keenaya alaabta waxa ay mas-uuliyadda kale saaran tahay waxa weeye waa dowladda aslan marka la samaynayo qawaaniinta iyo sharciyada la samaynayo waxaa loo sameeyaa dadyowga aanan damiirkoodu celinin dadnimadoodu aynan celinin in lagu celiyo sharciga marka meesha waxaa ka maqan laba shay kow waxaa maqan damiirkii aadanimo muslimnimo soomaalinimo wadaninimo ayaa meesha ka maqan markay taa meesha laga waayey waxaa doorkii kale la waayeyna ah inay qabato dadyowgii awoodda u lahaa inay reebaan ee dowladda ahayd dowladda ayay saaran tahay hadda mar haddii damiirkii dhintay soomaalinimadii dhimatay wadanninimadii dhimatay ee wax aan liita la keenayo dalka wax dhacay la keenhayo waxaan kuwaalata lahayn la keenhayo oonan lahayn tayadii loogu talagalay waxaa laga rabaa mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay dowladda dowladda waxaa laga rabaa shay walbee dalka imaanhayo ee la keenhayo in ay kontaroosho waxa lagu sheegay cunadani haddii ay tahay cunno nooca iyo nooca weeye layiri tayadii cunanimo ma leedahay waqtigii ku habboonaa in la isticmaalo ma joogaa weli mise waqtigeedii u dhacay oo expired bay noqotay hadday daawo tahayna sidoo kale laga rabaa way ugu darantahay daawada taaba iyo mas-uuliyadda koowaad waxayna saaran tahay dowladda soomaaliyeed ikraam saameyn intee la eg ayay shacabka kala kulmaan waxyaabaha dalka la soo gelinayo oo aad wada qirteen in aanay tayadooda wanaagsanayn saameyn waxa ay kala kulmayaan horta shay dhacay ama daawo dhacday marka aan siiyo ruux bukaana kullaytaba cudur cusub ayaan baa siiyey kama helayo wax faa'iido ah marka saameynta kala kulmayaan waxa weeye haddii ay daawati haddii shay kala tahaba wax aan ku habboonayn qofku markuu isticmaalo dhibaato kala kulmaya kullaytaba dhibaatada kala qaadmaysa weliba mid caafimaad ahaaneedna way noqonaysaa mid dhaqaale ahaaneedna way noqonaysaa aad bay u mahadsan yihiin martidaasi magaalada muqdisho joogtay barnaamijkan waxaa soo diyaariyey BBC Media Action mar kale facebookii aan ku noqdo muna maxamuud dhegaysta kale hay noo soo qabato khadar saleebaan siciid oo isna qodobkan aragtidiisa ka soo dhiibtay waxa uu yidhi dawooyinka iyo raashinka dhacay in dalka laga ilaaliyo waxay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladda waayo buu yidhi dowladda ayaa dalka iyo dadkaba mas-uul ka ah dhegaystahaasi iyo dhegaystayaasha kale ee barnaamijkan facebooka kala socda goordhow waxaan u hayaa qodobkii aynu baraha bulshada kaga doodi lahayn balse marka hore gabaygii isla xisaabtakan dhiiri gelinaya aan idin soo qabto waatan deeqa nuux yoonis qayb kale oo maasadii xeer ka tirsan xukumaha mas-uulka ah xidiglaha askariga xirfadlaha nijaarka manastaa xamaalka hooyada xaqdhowr kale dhallinyarada xoogga leh xeerbeegta adushiya inta aan la kala xadin xujiidiyo wadaadada culimmada xadiiska iyo xuma reebka aan gabin inta sidata xaashida qalinka iyo xariiqaha kuwa xidha cadaawaha xasidkiyo basaasaha kuwa tira xashiishyada kuwa dhaya xanuunada inta jirato xoolaha inta warisa xiisaha xogta iyo amuuraha xa kastoo la eegaba ummadihay xawaaraha xuma lagaga baaqdaa waa xoogsi wadareed aad bay maasayahanadu u mahadsan tahay toddobaadka kalena qaybo kale oo maasadan ka mid a ayaan idin hayaa dhegaystayaal balse intaynaan barnaamijka soo gebagabayn haddii aan idin sheego qodobka toddobaadkan dhegaystayaal aynu baraha bulshada kaga doodi doonaa waa fatahaadaha iyo dhibaatooyinka ka dhashay roobabka guga ee dalka ka curtay qodobkaasi doodiisu dhegaystayaal aad bay muhiim u tahay nagala qaybgala toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijkeeni waayaha noloshu intaasi haynoo joogo toddobaadka dambe haddii eebba idmo barnaamijka lamida intaynu mar kale hawada isugu iman doonno waa cabdilaahi jaamaciye safiya cali yuusuf oo idinku dhaafi doona sidaa iyo dhawaad barnaamijkii waayaha nolosha ayaad dhegaystayaal dhegaysanayseen haatana ciyaarihii haddii aan eegno tababaraha kooxda arsenaal arsene wenger ayaa ka qaybgalaynin koobka kama dambaysta ah kahor intuusan iska casilin tababaranimada kooxda arsenaal wararka kale ciyaarahana waxaa kamid ah kooxda ganas ayaa 2-1
waxay ku garaacday Atletico Madrid semifinalka tartanka koobka Europa League iyagoo lugtii hore ay ku galeen garoonka Emirates barbaro 1-1 toddobaadkii hore. dhegeystayaal wararka kale ciyaarahana idaacadeena dambe ayaad markaasi ku maqli doontaan. waa idaacadeena dambe idaacadii duhurnimona dhegeystayaal waa inaga intaa waxaa inoo ballanaa 5 galabnimo ee nabadgelyo.